ay ugu qabteen ama ku soo dhaweeyeen labada xildhibaan ee runtii karaamada iyo qiimaha bulshada dhexdeeda ku leh laba xildhibaan oo ka yimi waddanka Somaliland waa Saleebaan warsame Food iyo Maxamed Khadar waxaan leenahay welcome to UK qalbi furan iyo niyad furan iyo farxad ayaa reer UK ku soo dhaweynayaan ay kuna garab taagan yihiin aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa sida qiimaha badan ee aan loo kala hadhin ee caawa loo karaameeyey loo soo dhaweeyey niyadda iyo qalbiga farxadda leh loogu soo dhaweeyey labada xildhibaan runtiina waa laba xildhibaan oo si weyn uga cad baarlamaanka Somaliland oo in badan aynu ka warreeyay labada xildhibaan deeqseef sidaa iyo si ka sarreysay inaynu soo dhaweyno diyaar baan idin nahay intaad waddanka nala joogtaan welcome to UK ayaan idin leenahay halkaa haddii aan ka gudbo waan hore u sii galo xafladda waxaan jecelahay inaan u yeedho Mustafa Qarone gudoomiye Mustafa Qarone inuu inoo furo ayaan jecelahay soo istaaga Mustafa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لبدا حلوان أي سود وينو حلوان سليمان وسلم فود حلوان محمد خضر ظاهر هبلها قالي قال حفلتنا سوى قاسمي مدحت أصحابها وضياش يمرت شرفتك عليه لما أنتين وحنا ذكرنا هالنقينا سيدا شرفت له حفلة الماموسكا يوم مقام كسرة إنه كسر وينه كناس سووتي إنه لبلا مشروع حليبان أو قصة ضيق الشيء أنا هذا الكلام بدين معي سيدا عند الشيء وحنودي إن هذا الكلام لبلا حليبان وحويا مهنا أنا كم مهنا قياسا وقصة ضيق الشيء شرفت له iyaga oo ishu markhaati u tahay meeqaamka bulshada ku leeyihiin saynu isugu soo baxnay u soo dhaweynay aanan aaminsanahay taa iyo mid ka sarraysaba inay u qalmaan aad iyo aad baan mar labaad idinku mahadnaqaynaa soo dhawaada intaa haddaan ka gudbo dalkeennu habku maraya waynu ognahay waxba isaga sheegi mayno waxaynu u baahannahay inaynu ku shaqayno midnimo inaynu ka shaqayno inuu dadkeenu midoobaan maadaama xukuumaddan hadda jirta ay doonayso dadka inay kala dirto innaga slogankeenu aynu sidanaa waxa weeye midnimo iyo nabadgelyo inaynu nabadgelyada ka shaqayno iyo inaynu dadkeenu inay midoobaan aynu ka shaqayno aad baan idiin salaamayaa khayrna wadiina jiniya dhammaanta waa tahay uu ku mahadsan yahay sidaa ugu soo gaabiyey gudoomiye Mustafa Qarone waxay nala jooga ugaaskeenii ugaas Haaroon وأن شاء إن على بكر والإسلام أسيو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد مركب إله ومهلة مرلباتنا وحا آدي آد أمرومها النقية حفلتنا قيمها له رقي الضمر كي سوق منقابيي مرلباتنا وحا مهنقية سينيا دلوينهنا هاي UK كسو قيب قليعة وحفلتا سوغوتين تلبدا حلبان قالق نوغوة ودن كيو هاي نوغي مدي حلبان سليبان يحلبان محمد خضر وأن إليا هاي ورقا وقوم دكيسان حلبان هذين بارمك سومالان سيدا ويقان ورقا وحوق ووينوي آدي آد بانو سودو وينيا وانسي سوغوتينينا هدان انتا قدافو waxaynu ka dhaarigsannahay maanta waddankeennii Somaliland meesha uu marayo iyo siduu yahay cidna loo sheegi maayo marka waxa weeye waxyaabahaas oo kale marka ay socdaan waxaad arkaysaa hadalladii oo meel xooynaga maraya qabyaaladii hoos u raacday dadkii oo dhan walba qabiilad sheeganayo taana waxaynu kaga bixi karnaa saddex wax oo keliya ta ugu horaysaa waxa weeye innagoo midoobna ta labaadna waxa weeye
haddaynu nahay qabaa'ilka degan somalilan in aynu dhexdeenna aynu ka heshiino waxba inagama dhexeeyaan laakiin nin shaati madoobe lahayn dhex boodaya nimankaa inaynu iska qabanno weeye waxa kale intaan raacsanaya waxaynu kaga baxaynaa waxaas oo dhan waddanka oo doorasho gala baa lagaga baxayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa doorasho degdega inuu ilaahay inoo suurtogeliyo fariinna waxaan u dirayaa guuntida golaha guuntida oo aan leeyahay xeerkaa ini hor yaalla waxaan iniga baryaynaa si dhaqsa inaad ugu ansixiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marxalad adag baynu gallay ilaahay iyo rag baa u maqan waxaan rajaynayaa in markay noqdaan ay la tashadaan xildhibaanadii kale iyo asxaabta mucaaridka iyo ciddii kale ee waddanka ka naxaysaba inaynu insha allahu tacaala u gurman doono waxaynu doonaynaa adduunyo ma aha waxaynu u baahanay cadaalad waxaynu ugu faannaa ummadaha kale inaynu innagu isku filannahay ilaahay iidankii markay isbeddelku yimaado waxaa iman doonaa cadaalad cid walba ku fillata insha allahu tacaala aad iyo aad baan u salaamayaa madashan bareera boqoran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad u salaamayaa xildhibaanada sharafta leh ee maqaamka sare leh ee la sii sogootigayo la soona dhawaynayo waxaan aad u salaamayaa martidan quruxda badan ee inoo soo camirtay halkan ee aan la'aantood aanay maanta qabsooteen xafladanu aad baan idiin salaamayaa dhammaantood qof kastaba maqaamkiisa iyo makaankiisa ku salaamayaa waxaan halkan arkaa horta waxaa ku badan xisbigii waddani ee aqlabiyadda shacabka haysta aad baan idiin salaamayaa waxaadna tihiin xisbi ku suntan nabadda somalilan taariikhdu marba waxbay qortaa sanadka waxaad tihiin dadkii nabadda lagu qoray sii wada sii xejiya nabadda innagaa ku nool waxaa la yidhaahdaa gaaliya islaamba nabaddu waa u gogol nasteexaad kulligeen waxaynu ku naaloonnaa waa nabadda somalilan waxay ku naalootaa waa nabadda iyo dumurqaadiga aynu dadka kaga hormarnay taa inaynu xoojinno oo aynu dhidibada u aasnaynu rabnaa midna waxaan leeyahay qurbajoogta somalilan waxaan leeyahay waa halkii somalilan laga aasaasay yay noqon halkii laga dumiyey halkii somalilan laga dumiyey yay marnaba noqonin waxaan dalkiina leeyahay dalkiina dadka jooga waxaan leeyahay sidii berigii qoriga loo dhigay ee dadka qoryaha looga dhigay qabyaaladda ha loo dhigo waa la dhigi karaaye qabyaaladda sidii berigii qoriga loo dhigay ee loo dhameeyey ee cid qori sideetaba laga waayay somalilan maanta qabyaaladda dhiga oo isku duubnaada oo wada jira oo markay dadku wada jiraan ee hadaf leeyihiine hiigsi leeyihiin bay meel gaadhaan haddii kale haadkaa cuna yaynaan noqonin dadkii intaas soo sanno soo tabcay ee maanta tacab khasaaray waan ka baxayaa anigu aad baan idin salaamayaa dhammaantiin aad iyo aad baan u salaamayaa shacabka sharafta badan ee sida qiimaha iyo sharafta leh u soo dhoweeyey labada xildhibaan ee inagu qaaliga ah khadar iyo food aad iyo aad baad u mahadsantihiin soomaalidu carabtu waxay tidhaahdaa laa tashukur calaa waajib nimankani way inagu leeyihiin inaynu sidaa iyo si ka weynba aynu u soo dhoweyno way inagu leeyihiin anigana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ingiriisku wuxuu yidhaahdaa dream coming true inay caaway hor fadhiyaan aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqayaa anigoo jeclaa inaan arko maalin nimanka oo ay agtayda ka muuqdaan maasha allah aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa food iyo maxamed khadarba waad salaamantiin dhammaantiinba horta marka koowaad waxaan leeyahay welcome to London in badan baan campaign u galay oo dad badan u waloleeyay
tan iyo casarkii ayaan u taagnaa labadaa nin inaan xafladooda ka qayb galo oo aanan meel qabanin run ahaantii kambeynka siyaasadeed aan ku jiro in badan waxa uu la mid yahay jeex la mid ah inaan soo dhaweeyo mujaahidka weyn ee jabhadda sanam iyo maxamed khadar qof baa aabihii ka dhawaajiyey laakiin waa aabihii oo lagu daray iyo dheeraad waxa kale oo aan isagana laba taabtaana oo madaxa sare u saaran calanka xagga dambe taagan iyo waxa weeye guud ahaan shacabkaba mujaahidkood oo aan leeyahay madaxaad saaranta ugaaskana waan ugu hambalyeynaya inuu dadka ururiyo doorashada ka dhawaajiyey waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaanoo hadalka soo gaabinaya lafdhabarta xaflad kasta oo dalkan ka dhacda haweenweynaha soo abaabulaa ee safkii halkan taagnaa oo tanoo ku dhaata maaha ee u ah lafdhabar mar walba xafladda waxaanan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaan oo ay Saynab ugu horeyso Umul Khayr iyo qaar kale oo badan Saciida Suldaan oo aan aad u salaamayo Aamina Xidig iyo qaar kale oo badan aad iyo aad u mahadsantihiin ninka Xamsana waxaan leeyahay intaa uu abtigay ku tilmaamay iyo in ka badan abtigayna waxaan leeyahay Allah yaxfidak هذا الكلمة اللي وحين فرحان إنه هاي اللي وحنا بنرجعوجان مركايو كيف سودوا هذا اللي هاي سفر بيبقى يعني سفر كائن إلى كل الدنيا ويروسي تعاني وسوتينا عادي أدم سودوا هذا ولا يكون سودوا هذا السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سكال يلا وسودوا وينيا ونسقوتيا لبضح اللبان يا حلبان سليمان ورسام فود يا حلبان محمد خضر ظاهر وأن لا يهي هاوش قرن كهو هيسان إنه هيسان الله يقرب كينا كوجرو الله يدفع أسترو وحن هذا غيا الله يقيمها بدن هاوشن سوق بقابي وأنا يجعل الله يهيبه كما سنتي تمام تدوينها كسوق القرينة وحنا يهيبه ما سنتي أو هذا البدن الله يسورنا يا مجرتو ودن كيني وينكور عينا إلهي وحين كبرينا إنه نبض يعاني مسيو إن بلايداس دعيسا وينك تبوتيو وحين وهل كميني هو تقالما إنهاي إنك توانينا ونبض نبض نبض وما سنتي السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله آديات باني سلمى دمانتين قد لقى مقابلة حفلة محلية thank you very much آد باد مهسنتين تذلك قوتين تكسر دويسين لبدأنا حلوان بوضان هذا البدن وجهه يقدر يسنينا سلام يسر دوي يود عاد الله يسفر سلام إن شاء الله كل قوضتك هاوشي يكلمة يروح نقول يسا نبض انت تفسو كدريا السلام عليكم حبلي halkan soo qabaqaabiyay waad mahadsantiin baan leeyahay iyo ragii la shaqeeyayba waxaynu soo dhaweynaynaa labada xildhibaan oo laba xildhibaan oo inagu qaaliya caawa jaaliyadii reer Soomaaliland oo dhan ba halkan ku dhan kelmadeedu waxa weeyaan midnimo sharci madaxweynuhu aroortu noqonaya oo baxaya hadii la yiraahdo inoo iman lahaa wayna soo biritu ama baxaya way fasaxeen xildhibaanadu marka waanu reer UK-na aad buu soo salaamayay dhammaantoodba jaaliyad oo dhanba kelmadda iyo fariinta naga tagayna waa midnimo caawa xildhibaanada hadal kale aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu magac darnay oo loogu yeedho food maxamed khadar run ahaantii dadku xildhibaan unba u yaqaanin maaragtay Saleebaan laakiin waa mujaahid heesii calanka markii dawlad lagu qaadayay raggii u sababay inay dalka inoo xoreeyaan ayuu ka mid ahaa oo aynu isagana taa ku sharfayno maanta nasiib u helay inuu dalkii uu xoreeyay maanta uu ka noqdo kuraasada ugu sarreysay inuu joogo ee wax laga bedeli karo waxna lagu kordhin karo maxamed khadar oo isaguna reer iyo kasoo jeeda magac dheer oo uu uga tagay aabihii Allah yarxamo waxaanu leenahay dhammaantoodba soo dhawaada halkan waxa isugu yimi xildhibaanada anigoo soo dhaweynaya
jaaliyadii waxa ag fadhiya ugaaskeennii reer UK oo runtii qiimo badan inagu leh aynu isagana leenahay ku sharafno maalin walba inuu inoola soo dhaweeyo jaaliyad kastoo aynu soo dhaweynayno xafladan iyo suimaadkan waxaa soo qabanqaabiyey oo aan runtii doonaya inaan halkan ka magacaabo dadku in yar bay hadleen laakiin anigu waan ku yaro dheeraanaya sababtoo ah waxaan rabaa inaan u mahadnaqno hablihii iyo inamadii runtii nala soo qabanqaabiyey waxaan halkan aad uga xusayaa suldaamadda maanta inoo matasha suldaan daa'uud halkiisii inoo joogta waxa weeyaan suldaan maya waa laga weeyay mubaariga maanta waxa joogta oo xafladan aad noola qabanqaabisay waa Siciido suldaan Rashiid suldaan Cabdilaahi oo leenahay runtii qabanqaabadeedii iyo howlkarnimadeedii iyo isku soo dubaridkii xafladan ay nala qabanqaabisay aad baan runtii suldaamad kugu mahadinaynaa waxaan kaloo u yeedhayaa roodo cadaysay waxaan u yeedhayaa Sahra Ducaale waxaan u yeedhayaa Ubax Ibraahim waxaan u yeedhayaa Safiya Macallin waxaan kaloo u yeedhayaa Faayisa Cabdilaahi hablahaas waa hablihii qabanqaabada ee isku soo dubariday xafladan waxaan kaloo iyagana runtii aad u xusayaa suldaankeenna oo marka aan xagga ragga leenahay waa suldaan mubaarig oo aan leenahay Cumar Ibraahim oo leenahay isaguna qabanqaabada uu nagula jiray waxaan kaloo halkan ka xusayaa walaalkay oo marnaba nagala maqnaanin xafladaha isku dubaridka oo hogaaminta waa Cabdisamed Ali Madoobe aan leenahay in adeer mar walba korka ayaad noo saaran tahay waan ku sharafna waxaan kaloo isagana runtii aan doonayaa inaan halkan ka xuso caaqil inta badan dadku ma yaqaaniin waa caaqil maya caaqilkii maya waa ina biite aad baan runtii isagana u leeyahay walaalkii waa ka runtii hablahan la'aantood xafladani ma ay dhacdeen isku dubaridkeeda ka howlqabashadeeda isukeenka dadka jaaliyadda oo dhan ee reer UK oo loo kala maqnay inay isu keenaan inay soo abaabulaan inay ajiibaan xildhibaanadana runtii waxaanu aad ugu bogaadinaynaa sidii ay nooga ajiibeen ee ay noogu yimaadeen waan idin soo dhawaynaynaa waan idin sharfaynaa korkaan noo saarantii dadku waxay ka wada dhawaajiyeen dalkii isbeddel buu u baahan yahay isbeddelkii aynu sugaynay waa idinka korkiina ay saaran tahay xildhibaan nabadiina iyo xildhibaanada kale dalkii naga jiraba inaa isbeddel keentaan wixii laydin doortay waxa weeyaan inaa isbeddel keentaan ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa dalkeenni amni iyo ammaan waxaynu leenahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu colaadaha horta inaga qaboojiyo waxaynu kaloo leenahay inaynu isbeddel garanno bal dadkeena waaweyne inay gartaan dadka ay ku cayaarayaan mustaqbalkoodii inaan annaga iyo inta naga sii yaryarnahay marka waxaan leeyahay xildhibaan idinkoo korka noo saaran sharaf iyo qadarin mudan waxaan kaloo halkan jooga jaaliyado badan oo isu yimi waxa jooga habaryarihii anigu xildhibaan food habaryar baanu ahay maxamed khadar habaryarihii baa jooga marka waxaan leeyahay caawa waa habaryarihii marka xildhibaanada dhammaantood iyada oo loo wada yimi oo gobolada looga yimi magaalooyinka kala duwan ee reer UK soo dhawaada hablaha waxaan kaloo iloobay walaashayda qaaliga ah runtii geeridu ha ku ilowdo Aamina Siciid Xidig oo lafdhabarta iyaduna ahayd aad baan ugu xumay Aaminay magacaagii inaan halkan ka iloobay
laakiin geeridu ha ku ilowdo inaad halkan soo istaagtaan jecelahay ood nagu sharafto waxaan kale oo runtii ku gabagabaynaya aniga oo soo dhaweynaya madaxda xisbiyada ee halkan inala jooga dhammaantoodba siiba xisbiga wadani oo uu joogo hogaamiyayaashoodii waxaan kaloo soo dhaweynayaa jaaliyadda runtii rigliga u ah ee xafladan abaabushay oo guddoomiyahoodii iyo guddiyadoodii ay iyaguna joogaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadal badin maayo hablaha ciddii qaadanaysa ee hadalkeeda sheeganaysa way u furan tahay aad iyo aad baan idin salaamaya soo dhawaada waanaan idin sii dhaweynaa waan idin sagootiyeynaa asalaamu calaykum waayahay aad iyo aad bay mahadsantaysayna gurjuf waxaan jecelahay halkan inaan ka xuso nin dhalinyaro ah oo qaali ah oo activiist ah oo special xisbiweynaha aqlabiyadda shacabka somaliland ee wadani runtii dhiiggiisa u shubay in badanna xaflado badan aad ku aragteen oon jecelahay waa ninka dhalinyarada inta badan abaabulkeeda habeenii baan aan ka seexan oon jecelahay inaan caawa xildhibaanada soo horjoojiyo waa xabse saxabdi xabse waa nin qaaliya waa nin aad u qaaliya waa nin xisbiga aad ugu qaaliya in badan nala soo kifaaxay from beginning to the end. bismillah dhammaantood islaamaya waxaan si gaara u salaamayaa labada xildhibaan ee maanta aan sii sabootayayno ama sii dhaweynayno ama soo dhaweynayno waxaan runtii u soo kacay waanu inaan sii sabootiyo labadaa nin ee qaaliga nagu ah runtii waad ogeydeen waan ku noqon maayo taariikhdan waan soo maray inta xildhibaaninta haayeen 3 sano ka yartahay laakiin aad iyo aad bay labada nin u shaqeeyeen runtii waxaan farayaa oo waxaan faray baan u soo kacay wadankii waad la socotaan oo dadkii waa toon la kala qoqobay qabiil loo kala saasaaray qaar qoryo loo qaybinayo waxaan runtii idigu boorinayaa aniga codsanayaa markaad ku noqotaan wadankii walaalayaal dadka isku soo dhaweeya seminaar oo baxa taad ka shaqaysaan oo qura midnimo iyo tawfiiqda somaliland dadkeena la soo celiyo هذا بدل ما صوكعين لما أنتم الإسلامية آدية وماسدين صوت صوت المشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتين أرطوان والسلامية قبل ونسر كسين بيقام كسين بسلامية سيكارنا وحمس السلامية ونسر دوينية حلي معنا قطر كسومال الآن حلي معنا محمد خضر إيو حلي معنا فود سود وهذا اللي هاي إن شاء الله نحرجين إن بطب إن تكون قطان ودكي أنا قفرنت دو هاي تهون من نمو يدعو iyo in dadka maanta waxa weeye qolo walba wadankeena marka deegtid inaan hoos ku eegno weeyaan jaarka in laga warhayo weeyaan inaan ma hadeer weyntan xidhano aynu deerka aan taagnaano aynu inta xidhno dadka soo kuflino qofka jaarkeena inaan ka warhaynin marka dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee dhageysan doonta waxa jiraan klibteena aan la jarin fadlan jaarkiina ka warhaya caruuraha ka warhaya dad badan oo baahan oo dhibaataysan baa jira siiba dawladda aan fariintuna ku socota jarhaan ay kula soo ogaada waxa way gurweena deeroona qurux badan samaystaan jaarkina kugu xigana aan waru haynin waa musiibo inagana radio ka wax la inooga baahan yahay midnimo wada jir ayaa la inooga baahan yahay xilibaan kastoo yimaada madax kastoo yimaada xisbi ha u eegina xisbigu yahayna u eegina qof walba miisaankiisa iyo masaladiisa iyo maqabkiisa aynu ku soo dhaweyno aynu isku duubnaano iyagana waxaan leeyahay waa inii ducaynayaa insha allah bismillaahi kariim nabad ku soo noqda wadankeena ilaahay waxaan uga barayaa nabad inuu ku waaro ayaa ilaahay uga barayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad baan dhammaan u salaamayaa dadka sharafta leh halkan isugu yimid waxaan caawa anigu u imid khaasatan labada xildhibaan wax siyaasad iyo xisbi aan ku jiraa ma jirto midnaba nin madax bannaan baan ahay laakiinse sharafta labadaa nin oo oday ayaan u imid waxaan leeyahay soo dhowaada ku soo dhowaada magaalada London waxaan rajaynayaa in ilaahay ka baryayaa in safarka aad ku baxaysaana idinku nabadgeliyo dalkiina nabadqab idinku geeyo intaasaa hadalanaha adhay looma hadlo intaasaa ku soo gabagabayna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم odayaasha cuqaasha salaadiinta iyo ugaasiyada aqoon-yahanka iyo dhalinyarada hablaha sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha badan leh ee dhinac walba iga xiga xafladan aad iyo aad u quruxda badan
waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waan idinka mahad celinaynaa sharafta aad noo samayseen iyo soo dhoweyntii hadday tahay tii hore musharaxu nala socday iyo hadday tahay caawatan sagootiga aad noo samayseen mid gobol ka yimi iyo mid reer London ahaa iyo inta waqtiguu saamixi waayey ee caawada soo gaadhi weydayba waxaan leenahay reer UK aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waana sharafteen waxayna gaadhay waanaanu idinka mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaadba sida quruxda badan ee aad u dheertihiin waddan kasta oo halkan aad ugu soo hadal qaado soo dhoweyntiinna iyo midnimadiinna iyo qarannimadiinna dhisaysaan iyo aqoonta halkan isugu timaadeen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waa magaalada kaliya ama waa waddanka qura haddii aan nahay xildhibaanada qaranka jamhuuriyadda Somaliland noo furan ilaahay noo fududeeyey isagoo ilaahay arkaya caqligiinna iyo quruxdiinna iyo soo dhoweyntiinna iyo farxadda aad ugu soo dhoweynaysaan mar walba waa midaanan ilaawi doonin bidillaahi kariim aad iyo aadna waan idinka mahad celinaynaa hadal badan waan odhan lahaa laakiin waxa weeye waxaan ugu filaatay sida sharafta leh aad noo soo dhoweyseen iyo qiimaha leh waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa qabanqaabiyayaashii iyo mas-uuliyiintii meel dhow iyo meel dheerba isaga timi ee sidan quruxda badan ee sharafta leh noogu soo dhoweeyey ee xafladdan inoo qabtay sida gaara iyaguna maaragtay howlgallada gaarka u sameynayey ayaan idinkana idinka mahad celinayaa haddii aan ka soo daadego oo intaas ay noqoto mahad celintii reer London ama reer UK aan idinka mahad celinaynay waxaanu nahay aniga iyo xildhibaanka walaalka ila socda iyo in badan oo hore u aragteenba waxaanu matalaynaa qaranka Somaliland waxaanu matalaynaa golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland ilaahay waxaanu ka baryaynaa kuwii uu guuleeyo ee dadkooda iyo dalkooda anfaca insha Allah ilaahay inuu naga dhigo maanta waad ogtihiin miidiyaheenu aad iyo aad buu maaragtay u dheereynaya wararka waynu helaynaa waxaynu u baahannahay aqoontiina halkan taalla iyo inta annagu aanu hayno inaynu isla kaashanno oo waddankeenu maanta halkuu marayo sida aynu midnimo iyo wadajir iyo walaaltinimo ugu soo celin lahayn dalkeenu wuxuu u baahan yahay aqoontu waxay u baahan tahay hoggaamin dal kasta madaxweynaha jooga ama inta la shaqaysa sida halkan aad u aragteen ee sharciga ugu hoggaansantihiin aad u ixtiraamaysaan waxay u baahan tahay hoggaamiye kastaaba dadkiisa inuu u sameeyo sidan iyo si lamida ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu hoggaankeenna inoo hagaajiyo hoggaanka mustaqbalka insha Allah billahi kariim oo aynu dhaanno sidaynu maanta nahay ciidamadeenna xaaladeedii dalkii Somaliland oo runtii madaxweynayaal badan iska soo wada bedeleen maanta halkuu marayo waynu ognahay waxaynu kaga bixi karnaa inagoo midowna oo aan reer isku sheegin waad aragteen maanta TV-yadeennii haddaad daawataan dadkeennii oo qoryo loo dhibay oo cirka qoryo wada taago nin walba haddaa reer hebel ayaa iga adkaanaya uma baahanintaa maanta waxaynu u baahannahay inaynu ku midowno maskax ummaddu waxay dagaalantaa ama wax iska celisaa ama hore wada martaa markay maskaxdoodu midaysan tahay waxaa la yidhi maxaa la yidhahdaa 5 nin oo walaali waanay xoolo badiyaan meehed ama way xabaalo badiyaan waxa weeye markay dadku walaal yihiin ee ay isku duuban yihiin ee madax dhaqameedkooda iyo siyaasigooda ay wada socdaan iyo dadkooda shacabkii ay midoobaan way ka tallaabo kastoo lagu soo qaado way iska celin karaan oo way iska difaaci karaan jamhuuriyadda Somaliland waxay ahayd mid midaysan waxay ahayd mid laga baqi jiray waxay ahayd mid sharaf leh waxay mid ahayd mid nabadgelyadeeda iyo horumarkeeduba sare u kacay laakiin maanta hoos bay nooga dhacday waxaynu u baahannahay inaynu guntiga wada giijsanno waxaynu rabnaa inaynu nabadgelyada ku soo dabaallo nabadgelyadu qof kasta danbay u tahay haddii uu dagaal dhaco wax badan baan u soo joogay dagaal muddo dheer baan ku soo jiray waayo arag baanu ahaa waxalaala wax faa'iido taraa ma jirto dadkeennuna dal iskama qabsadaan dadna iskama qabsadaan
laakiin iminka waxay soo baxday burburka iyo inagu yimi iyo midnimo la'aantu inay khasaaro badanna gaadhsiisay waxaan is leeyahay inaynu inagu marka hore midowno ayuunbaynu horta kaga bixi karnaa maanta tan maanta waxaanu ku dadaalaynaa insha allah bilaahi karim inaanu midayno inaanu dadka iyaga aanu sidaan hore ugu soo halgalnay maantana ugu soo halganno waxaan u baahannahay inaynu iskaashanno maskaxdii iyo aqoonta halkan la joogtaan waxaynu u baahannahay inaynu gudahana maanta markay sidan oo kale tahay raggiinnan iyo hablihiinnan aqoon-yahanka quruxda badan halka fadhiya inaad nagala qayb qaadataan maantoo kale somalilan gurmad bay u baahan tahay gurmadkay u baahan tahay waxa weeye caqligii iyo aqoonta halkan taalla inay maanta aad nagula gurmataan annaguna aanu dhinaca iyaga qabanno bidillaahi kariim oo dadkeenna maanta aynu u horseedno midnimo iyo isku duubnaan qabyaaladii meel ayna geen mayso horena waa loo soo maray inaynu dib ugu noqonnana dooni mayno waxayna rabnaa sidii madax dhaqameedyo hore sheegeen inaynaan dagaalka ku horraynayno nabadda ku horrayno nabaddaa waxtarta haddii aynu midowdo labadaba wax waynu iskaga celin karnaa nabad iyo colaad labadaba markaad midaysantahay baad wax ka tari kartaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa safar fiican